سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داوديال هبين وعن او وناكسن ملكستو اجوكتان iyo waliba si walba muuqaalkeena uu idiisoo gaarayo kusoo dhawaada barnaamijkeeni caawa iyo ciyaaraha oo aan kusoo qaadan doono qodobo aad u xiiso badan sida Romelu Lukaku oo si rasmi ah ugu mid noqday kooxda caanka ah ee lagu magacaabo Inter Milan iyo kooxda Arsenal oo soo gabagabaysay ololahoodii baaxadda weyna oo ay ku doonayeen laacibka reer Scotland ee lagu magacaabo Kieran Tierney amaani wuu ka dhan yahay mucjisada reer Argentina ee Lionel Messi iyo Rivaldo oo amaani kala dulacay sheegayna in aan la helaynin mid la mid ah mucjisada reer Argentina ee Lionel Messi sidoo kale barnaamijkana waxaad ku daawan doontaan qalliinkii lagu sameeyay Marco Asensio iyo waliba xaalkiisa guud oo kooxda Real Madrid ay bayaan ka soo saartay qodobada iyo kuwa kale aad u xiiso badan ayaad ku daawan doontaa barnaamijkeena ugu horeyn haddii aad nagu cusub tahay fadlan subscribe dhaho channelkeena adigoo riixaya calaamada gambaleelka si aad u noqoto daawadaha ugu horeeya hana naga iloobin in aad like saarto muuqaalkan mahadsanid halkani waa Toleto Channel kooxda Inter Milan ayaa si rasmi ah waxay u xaqiijisay in ay dhameystirtay saxiixa weeraryahanka reer Belgium iyo waliba kooxda Manchester United ee Romelu Lukaku kooxda lagu naanayso Nerazzurri ayaana ka shubtay Romelu Lukaku adduun lacageed gaaraya 75 milyan isla markaana ay dheeri ka tahay lacagta gunnada ee ku xiran bandhigiisa gaarka ah ee kooxda Inter Milan waxaana kor ay u gaari kartaa adduun lacageed gaaraya 85 milyan oo lacagta euraha ah tababare Antonio Conte ayaana ugu dambeyntii helay weeraryahankii uu sida weyn u baadigoobayay kaasi oo noqonaya Romelu Lukaku maxay ahayd sababta uu uga soo tagay maslaxadda riyada ee Old Trafford Romelu Lukaku oo ka hadlayayna waxa uu yiri Inter Milan waxay ahayd kooxda kaliya ee aan doonayay sababtoo ah Inter cid waliba looguma talagalin ilaa ma dad qaas ah mooyee waxaan halkan u imid in kooxda Nerazzurri aan ku soo celiyo halkii ugu saraysay oo Inter waxay ka mid ahaan jirtay kooxaha ugu halista badan horyaalka Serie A Talyaaniga laakiin bariyihii ugu dambeeyay kooxda Inter waxay iska noqotay koox xoogaa yar iska laata caleesh ah Lukaku ayaana noqday xidiga afaraad ee ugu qaalisan taariikhda horyaalka Serie A Talyaaniga waxaana uu soo idleeyay 252 kulan uu ka qaraabtay horyaalka ugu caalamisan dunida ee Premier League isagoo ka dhaliyay 113 gool sidoo kale reer Arsenal ayaa u soo yeeray dhawaq ay aad u sugayeen kaasi oo noqonaya in kooxda Arsenal ay si rasmi ah u dhameystirtay saxiixa laacibka reer Scotland ee lagu magacaabo Kieran Tierney oo muddooyinkii ugu dambeeyayba bartilmaameed u ahaa macallimka lagu magacaabo Unai Emery kooxda Arsenal ayaana xidigana waxay ka bixisay adduun lacageed gaaraya 25 milyan oo euro iyo waliba lacag gunna ah oo ku xiran haddii Arsenal ay u soo baxdo tartanka Champions League xilli ciyaareedka soo aadan 22 jirkan ayaa kooxda Gunners wuxuu qalinka ugu duugay heshiis 5 sanadood ah isla markaana uu ku joogayo garoonka Fala Emirates ilaa iyo 2024 wuxuuna booska bidix uu kula dagaalami doonaa difaaca reer Spain ee lagu magacaabo Nacho Monreal sidoo kale Kieran Tierney ayaa tijaabada caafimaad wuxuu ku maray isla waqooyiga London waana uu ku baasay xidigan reer Scotland ayaa kooxda Celtic wuxuu u saftay ilaa iyo 40 kulan horyaalka laga ciyaaro cariga Scotland wuxuuna ka mid ahaa difaacyada ugu qatarsan halkaasi waana sababta uu u ishaartay macallim Unai Emery Kieran Tierney waxa uuna sheegay in uu aad ugu faraxsan yahay ka mid noqoshada kooxda Arsenal isagoona u xiran doona kooxda ka xamaalata horyaalka Premier League ee dalka Ingiriiska lambarka 3 oo ahaa mid iska haawinayay dhinaca kale sida laga soo xigtay BBC qaybteeda sportiga kooxda canka ah ee lagu magacaabo Juventus ayaa gabi ahaanba waxay beeca uga baxday kooxda Tottenham oo aad u doonaysay laacibka lagu magacaabo Paulo Dybala ayaa muddooyinkii ugu dambeeyayba wuxuu bartilmaameed u ahaa kooxda ka dhisan waqooyiga London xitaa wararka waxay tilmaamayeen in 70 milyan oo farasaar ah ay gacanta ka saartay kooxda Bianconeri ee ka ciyaarta horyaalka Serie A Talyaaniga laakiin
haatan war soo baxay waxa uu sheegayaa in guud ahaanba Juventus aysan iibin doonin laacibkooda reer Argentina ee Paulo Dybala isla markaana nagi uu ku sii ahaan doono magaalada Turin iyo waliba ariga Talyaaniga. marka kana wararka ka baxsan xagga suuqa kala iibsiga ciyaartoyda xidiga qadka dhexe ugu ciyaara kooxda Real Madrid ee lagu magacaabo Toni Kroos ayaa qirtay in uu ku dhawaaday in uu ku biiro naadiga Manchester United xagaagii 2014 markaasi uu doonayay in gabi ahaanba uu isaga tago kooxda caanka ah ee Bayern Munich. mar uu waraysi siinayay jariirada caanka ah ee lagu magacaabo Marca waxa uu yiri Toni Kroos, waan ogaa in kooxda Manchester United ay doonayso. David Moyes ayaa si buuxda u taageerayay in kooxda aan imaado. waxaan wada qaadanay waqti aad u xiiso badan oo aan kaga wada hadalnay qorshaha kooxda Manchester United aan ugu mid noqonayo. waa laygu qanciyay ugu dambeyntii, wax waliba waxay ahaayeen diyaar. ugu dambeyntii waxaan ogolaaday in aan si shakhsi ah ugu biiro kooxda Manchester United. aniga ma ihi qof ka fikira waxa dhici doona. wax waliba waa ay soo dhawaadeen. waxaan ku dhawaaday in aan noqdo ciyaaryahan Manchester United ah, laakiin ugu dambeyntii ma aysan noqon ayuu yiri laacibka lagu magacaabo Toni Kroos. ugu dambeyntii reer Manchester United ayuu kabaha la dulmaray laacibka kooxda Real Madrid iyo xulka qaranka Jarmalka. waxa uuna yiri, waxaan dhihi karaa hal shay oo hubaal ah, haddii aan joogi lahaa Manchester United kuma guulaysan lahayn Champions League 3 jeer. ayuuna hadalkiisa ku soo qatimay. talow Manchester United miyayba diris la tahay koob la'aanta oo si weyn ayuuba u rafadsaday laacibka reer Germany ee lagu magacaabo Toni Kroos. isla sheekooyinka xidigaha kooxda Real Madrid ayaynu ku guda jirnaaye kooxda Real Madrid ayaa iyadana dhankeeda waxay bayaan ka soo saartay xaaladda dhaawac ee laacibka lagu magacaabo Marco Asensio oo qalliin lagu sameeyay. waxaana bayaanka kooxda Real Madrid ka soo baxay lagu yiri, ciyaaryahanka Marco Asensio wuxuu si guul ah ugu gudbay qalliin uu ku maray seedka hoose ee jilibka bidix. qalliinkaasi waxaa fuliyay Dr. Manuel Liais, waxaana kor kala socday waxda caafimaadka ee kooxda Real Madrid. Marco Asensio wuxuu ku jiri doonaa isbitaalka in muddo ah, ka gadaalna waa uu ka bixi doonaa si uu u bilaabo howshiisa daweynta ayaa lagu yiri bayaanka ka soo baxay kooxda caanka ah ee lagu magacaabo Real Madrid oo aad u tabaysa laacibkooda Marco Asensio oo dhaawac halistiisa leh uu ka soo gaaray ciyaar ay la ciyaarayeen kooxda Arsenal. amaan uma baahno xidiga reer Argentina ee Lionel Messi oo maxaa yeelay waxa uu noqday mucjiso gilgishay guud ahaan dunida kubadda cagta. haryayga reer Brazil iyo kooxda Barcelona Rivaldo oo ka hadlayayna hogaamiyaha kooxda Barcelona Il Capitano Lionel Messi waxa uu yiri, ma jiri doono Lionel Messi cusub, laakiin waxa loo baahan yahay in la helo ciyaartooy kale oo isbedel samayn kara marka uu isaga maqan yahay. laakiin waxa xusid mudan marka uu ka maqan yahay Messi ciyaarta in aad u xiisi doonto. ileen waaba nin loo xiiso Lionel Messi maxaa yeelay waa geesi hogaamintiisu ay tahay mid cajaa'ib leh. Messi bila Barcelona wa Barcelona aan faa'iido lahayn sida ay qabaan dadka qaar, laakiin magaca Barcelona ayaaba ka weyn Lionel Messi oo maxaa yeelay Soomaalidu waxay tiraahdaa mudul waxa ka weyn ninkii dhisay. Barcelona Messi iyada ayaaba soo saartay. ugu dambeyntii waxa soo dhamaatay rajo kasteeta oo ay ku doonaysay kooxda Bayern Munich laacibka lagu magacaabo Leroy Sané oo dhaawac adag uu soo gaaray ciyaartii kooxda Manchester City ay ka qaaday koobka Community Shield-ka naadiga Liverpool. kooxda Manchester City ayaana isla habeenku caawa waxay xaqiijisay in qalliin degdeg ah uu u baahan yahay laacibka reer Germany ee lagu magacaabo Leroy Sané. kooxda Bayern Munich ayaana gabi ahaan waxa ay sheegtay in ay isaga hedhay xiisii ay u qabtay laacibka reer Germany ee Leroy Sané. guud ahaan intaasi waxay nooga eg barnaamijkeennii ciyaaraha uu idila socodsiinayay anigoo ah Maxamed Cabdirasaaq Tolman. inta aan ku kulmi doono barnaamijkan barnaamij la mid ah, asxaabay waxaan idiga tagayaa sida iyo nabadgelyo iyo nooli kulanti. sidoo kale ha iloobin haddii ay dhacaan saxiixyo kaleeto waaweyn marka la eego suuqa qaaradda Yurub iyo midka horyaalka Premier League ee dalka Ingiriiska, dib ayaan u soo laaban doonaa anigoo kula wadaagi doona heshiisyada muhiimka ah ee ka dhaca horyaalka Premier League dalka Ingiriiska oo suuqiisa gabaabsi yahay
oo xaaladdu Premier League ayaana noqonaysa waqti xaadirka kan mid la isku hub urursanaya oo waxaan la yaabanahay waxa dhici doona xilli ciyaareedka soo aadan.